بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرفة السلام يا دلهانتي ملك استوى جوجتان سود وهذا أصحابي وقت جوجيجا هايدي معنا ويا هاي kooxda argagixisada maanta waxay soo qaadeen dagaal ballaaran oo saf ballaaran ah dagaalkaas oo runtii yacni la filayay ama kooxda ay qorshaysay muddo dheer runtii jabkii kol hore ka soo gaaray dagaalkii ceel hareeri wixii ka dambeeyay kooxda waxay yacni ku tashanaysay ama ay waday qorshe ahay in xawaadle ay mar uun yacni ka quustaan oo ay weeraraan runtii maanta ayay soo weerareen balqadii haddaba maanta maxaa dhacay dilka loo geystay sargaalka xujaale taliyo xujaale ma wuxuu ahaay dil olakac ah mase dil kama ah taas waxbaan ka dhihi doonaa haddii ilaah yidhaahdo dhankan kaleento diyaaradda wax duqaysa ee dowladda yacni kor ka saacida ayadana dhibaatada ay u geysatay ciidanka macawisleyda duqaynta ay u geysatay oo rag yacni dhowr ah ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen iyadana maxaa farsamo xumaa keentay mise iyadana waxa weeye mid yacni lagu dhabar jibinayo ciidanka deegaanka macawisleyda gobolkaas ka soo jeedo soo dhawaada asxaabay intaas ayaan ka hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo muuqaalka haddii ku soo gaaro share like intaba noogu qabta دكتور شافعي آدم در loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ila bariskobiga ama laserka dhakhtarka oo daboolay baahiya caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka maalin waliba waxa uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar ama wixii faafahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya kooxda argagixisada maanta barqadii waxay soo qaadeen dagaal saf ballaaran ah dhowr aag ayay dagaal ku soo qaadeen dagaalkii horta waa laga hortagay nimanka oo waa la jabiyey waana la iska dhiciyey cagtana waa la mariyey balse meesha waxaa ka dhacday dhibaato kale ayaa ka dhacday sargaal dhan oo guutada 26aad qaybta 7aad hogaaminayay oo lagu magacaabo xujaale ayaa meeshii lagu dilay sidii la xaqiijiyey sargaalkan waxaa dilay askari ka mid ah ciidankiisa oo gaandhari ka ahaay qori dhishika oo cabdibila saaran haddaba ilaa iyo hadda markaa xaqiiqda dhabta ah lama hayo sababta sargaalkan u dhintay xujaale wuxuu ahay sargaal weyn ilaah baa weyn oo waaxid ah saraakiisha maanta jooga ragga ugu firfircoon oo dagaalka argagixisada kula jiro ragga ugu horeeya ayuu ka mid ahay in badanna ay raadinayeen kooxdan argagixisada balse gacantooda kuma bixine wuxuu ku baxay gacantii isla ciidankiisii ayuu ku baxay mid ka mid ah wararka marka hadda hordhaca yacni goobaha ka soo baxay waxay sheegayaan in sargaalka si olakac ah loo dilay qaarna waxay leeyihiin si kama ah ayuu ku dhintay balse baaritaan ayaa socdo oo dowladda waxay sheegtay in guddi baaritaan ah yacni loo dirayo arrinkaasna yacni soo xaqiijinayo baaritaanka bacdina dowladda ay ka hadli doonto marka waxaan leenahay allah u naxariisto taliye xujaale runtii wuxuu ahay taliye geesi ah argagixisada in badan cashiro u dhigay runtii marka waxa weeye maanta ayuu wuxuu sababsaday isla ciidankiisii mid ka mid ah gacantiisa ayuu sababsaday marka waxaan leenahay allah u naxariisto taliye xujaale waayahay dhaqan kaleeto waxaa dhacday in kooxdii markii la jebiyey oo la sii bursanayo oo laga guul gaaray in diyaaradihii yacni droniska ahay ay yimaadeen halkaasna duqaymo ay ka furiyeen duqaymihii mid ka mid a gantaal ka mid ah ee diyaaradda soo tuurtay waxa uu ku dhacay isla ciidankii deegaanka ahay oo ay saacidaysay oo kor ay ka saacidayso dowladda ay usoo dirtay tiri ciidankaas saacida halkaas waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jiro marar kaleentana way dhacday yacni howl noocaas oo kaleentaa marka tan maanta dhacday marka waxaa leeyahay waxaani waa wax yacni siyaasadeed ama wax yacni waxaan waxaa weeye lagu yacni dhabar jibinayo dagaalka ballaaran ee maanta ay soo qaadeen kooxdan oo lagu jabiyey mid yacni ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladda meesha ka howlgalayay lagu dhabar jibinaya ayuu ahaayee lagu leeyahay weerarkan gantaalkan lagu dhuftay ciidanka macawisleyda runtii kolaytaba taliyaha hay-adda nabad sugidda sambaloshe arrintaas wuxuu yidhi guddi ayuu u saaray uu yidhi waa in lasoo ogaadaa qaladka meeshuu ka jiro iyo waxa sababay in ciidankii deegaanka gantaal ee diyaaradda ay ku dhufato wararka qaar waxay sheegayaan in madaxa howlgallada diyaaradaha nin lagu magacaabo sakariye inuu amarka asaga oo bixiyo
amarka asaga uu leeyahay ninkaasna horey wuxuu uga soo goostay kooxda argagixisada ah haddana wuxuu u qaabilsan yahay hay'adda nisaa madaxa wuxuu u qaabilsan yahay howlgallada diyaaradaha runtii meeshaasna ayadana waxbaa laga dareemayaa oo tuhun ayaa ku jiro wixii horta jira way soo baxayaan waxay jirana ilaah ayaa naga og laakiin qaladaad waaweyn ayaa maanta dhacay sargaal dhan oo ciidan hogaaminayay halkaas ayuu ku dhintay ciidan dhowr ah oo macawisley ah ilaa 7 ilaa 8 gaaraya iyo dhowr iyo 10 dhaawac ah ayagana halkaas waxyeello ka soo yani gaarsiisan diyaaradaha dowladda taageera runtii marka waxaa weeye waa mashaqo inteeda la eg laakiin haddaan dib ugu laabto kooxda argagixisada ah maanta waa laga guul keenay dagaalkii ballaarnaa ee soo qaadeen oo lahaayeen in badanba waa aan quusanaynaa oo xawaadle ayaan ka quusanaynaa maanta waa la quusiyey waxaan leenahay argagixisooy waad quusateen wax dambe oo idin dhiban ma jiraan dib iskaga laabtaan leenahay waxay ku soo weerareen ciidan aan yarayn oo dhowr kun ah laakiin waxaa isweydiin mudan dagaalkan kooxdan wayahan dhanba waa la warhayay oo waxaa lahay kooxdu waxay soo wadaa dagaal kama dambeys ah oo ay ka quusanayaan beesha xawaadle runtii ciidankan waa ciidan isku soo aruuriyay meelo badan laga soo aruuriyay dowladda miyaysan sirdoon lahayn miyaysan sahan lahayn miyaysan arkayn nimankaas aruursanayo maala duqeeyo markii dagaal bilowdo ama ciidankii kooxdii argagixisada la jabiyo waata diyaaradaha imaanayaane ka hor miyaysan yani diyaaradahan aysan duqeyn karin nimankaan is aruursanayo intaasoo kun ah nimanku waxaa lihi 3 kun 4 kun 5 kun ayay gaarayeen maanta soo weerartay argagixisada intaa marka nimanka la eegis aruursanayay dowladda miyaysan arkayn miyaysan diyaaradahan droniska aysan arkayn miyaysan dowladda aysan ka warqabin waxaa weeye meeshaan sheeko waxaa socoto musalsal ah oo aan dhammaad lahayn runtii marka waxaan leeyahay wiilasha macuuslada beesha xawaadle ilaahay idinkiisa kuleeta waxaa weeye had iyo jeer guusha ayaa idinka mataan la tihiin cadowgana waad ku guulaysanaysaan ilaahay idinkiisana waxaa tihiin dad yacni gardarra yacni loogu soo duulayo deegaankooda iyo naftoodii maalkooda yacni lagu duulaan lagu yahay adinka waxa weeye duulaan ma tihiin adinka ayaa duulaan idinku yahay oo loo socdaa in naftiina iyo maalkiina intaba la banaysto adinkana waa aad diideen waana ka dhiidhiseen waana hor istaagteen cadow argagixisada marka waxaan leenahay maxaa idiin haray awood kaleento oo idiin hartay miyaa jirta kulleyta waxaan u malaynayaa dagaalkan kii ugu dambeeyey inuu yahay oo aad macuusliyada xawaadla aad ku soo qaadeen waayahan dhan waa is aruursanayseen oo waa sheegayseen waa u shirayseen oo waa lahedeen xawaadle maraan ka quusanaynaa maantana waa lidin quusiyey baktigiinnii ayaa waran waxa idin dhiman oo keento anugu ma garan karo dad caqli leh oo xisaabtama haddii aad tihiin weeye laakiin haada ayaa tihiin dabka iskaga daato waxaa ma fiirinaysaan iska soo socda imaada waa lidin liqayaa meeshaan nibriyaal ayaa fadhiyo idin liqaya markaad timaadaanba waxaan leeyahay marka kusoo gabagabaynayaa intii ku shahiiday dagaalkaas ciidamadii xaqudirarka ahaay ee macuusleyda iyo kuwa dowladdaba waxaan leeyahay allahu naxariisto intii ku dhaawacantana allah u boogan ayaan leeyahay taliyaha meeshaa ku geeriyooday taliya cabdiraxmaan bujaalena waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo sidoo ku dhintana kuletaba waa la baari doonaa baaritaan ayaa guddi ayaa loo saaray baaritaan ah wixii ka soo baxa kuleba dowladda markaas ay ummadda la wadaagi doontaa haddii ilaahay yidhaahdo hadduu xaqdarro ku dhinto iyo hadduu xaq ku dhintaba waa la ogaan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dhammaan waa idin salaamayaa muuqaalka share iyo like intaba noogu qabta guul waa la guulaystay macawisley waa guulaysatay argagixis waa la jabiyey baktigooda ayaa waran mar dhowna waa arkaysaan baktiyadoodii oo lasoo bandhigay oo la jijidayana waa arkaysaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu